الشيخ شاكر واستقيمات وإيمان وحصول ويبقى ولو وحنا مقالة يومي مالها وصدر في كامل الرجاء صارفين عليه عن قوة اللي كانوا خاصة دين كانوا ينفرسوا دستور كانوا ينفرسوا قفوا الله وحنا نقول من هاي إنا لما يستمروا اسمه دولة كجيل وهو لما يستمروا هذا من صلاة مركب هو لما يستمروا وهي فرصة إنسان لما يستمروا تجارب كل كتاب خوارج وهي فرصة إنسان خوارج تلو كيدي سكانها خوارج وصل الإنسان وعليه مكان يجديه ماذا ويدرس البيان وحيث وصل الإنسان شعب والديه وحرمات الإنسان حدي إلهي هذا يعني كفاءة سيأتيكم والبعضان ومهيب أدام إليكم عدي بوشك في الإنسان بقيني من دور يحصل الإنسان يعرف الإنسان دوغات كيف كمالي دوشي كوي قلبي مطلق لي كل نوعي يفتي بليه مالي كيما سيكون درما ماشي كوي وحام مترجوي ولا صوماليات كأقول كل أمور عدو وين وتفضل بليه وضع الجديدة وخوارج وانا إلى القرايا وانا كل يدلنا ديايا لما شيء وقرأ وحاجة الله إلى نحسيسيه وقلقه بضر الإسلام طبعا مدوى مصمص وبيشيك ومصمص وحالتان ومصمص وشغلوا بليه وقصوا على ما خلوه يسوى مصمص وعدالة الأمل ومصمص وإحل ومصمص وحول المرمات الحنة ودين تنبيو آلي وطلعي ومصمص وأنا في كل جيد أدام مقالة الحرمة مقالة الإيمان وأنا كل جيد أنا مصمص وأنا كسور ذلك سنة إلهي أريد الله صومالي وهاي وهاي qabyaalada ayaa laga noqon rabtaa diinteena ana qabyaalada ay dadku ilaahay fariican ay waxay u baahan inay tahay qabyaalada waxa ugu horeeya sida culimadu noo sheegtana sidaas ma aha sida quraankeena ku qoranna quraanka waxa ku qoran وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن لسكو قرطة كلية سمح قبيالدي أيا وحي النقطي أساس كنلاشا وحمان كدر المصوماسو علماء وأنا عندك اللي قد دالين لوبيا رامر والله شيئا داري خلدا إن النقود تيدلك الدمستي إني تاي soddonkii sano oon soo dhaafnay oon dhibka ku jirnay tii noo keentay inay tahay soddonkii ka horreeyey qaybtiisa ugu dambaysana burburka iyadoo inay mas-uul ka ahayd inta inoo dhiman waan idiin soo dhoweynay shiiqana waan u mahad celinaynaa dowladnimada ku fara adayga qoloqolo iyo qabiil iyo koox yar meel waa lagu gaari waayo inta idiin dhiman شعب dhalinyaro waayeel ganacsada iyo culimo kulligiin israaca hadii aad u samareebtihiin soo dhaweeya insha Allah dawladnimada ilaahay dhibka naga bixiyo ilaahay ummadda Soomaaliyeed qalbigooda soo dhaweeyo ilaahay midnimada ha nagu wado ilaahay qabyaalada ha naga ilaaliyo
ilaahay qof walba oo qarannimada ka soo horjeeda ha naga qabto ilaahayow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahow rabbiyow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha u nimceeyo ilaahow dhibka ha ka qaado ilaahow cadowga gudaha iyo cadowga dibadda naga ilaali ilaahay shacabka Dhuusamareeb ha barakeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.